suuqyada magaalada Hargeysa waxaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qudarta noocyadeeda kala duwan xilli xukuumad cusub ay ka dhalatay Somaliland. Faafahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha iyaga Faisal Maxamed Aadan FIFA. kala iibsiga noocyada kala duwan ee khudaarta suuqyada magaalada Hargeysa oo mudooyinkii laga soo gudbay marba marka ka dambaysa kor u kac ku yimanay si weyn saameyn ugu yeelanay dadka danyarta inta badan ku xidhan gadashada iyo iibsashada khudaartani si ay ugu quudiyaan qoysaskooda oo markii horeba si weyn ula tiicay saameyntii xooganeed iyo sidoo kale raadadkii ay ka tageen abaarihii baasana ee ku dhuftay deegaanada kala duwan ee Somaliland oo ay ugu lamaanayn hoos u dhaca ku yimid lacagta shilinka Somaliland oo lacagta inta badan dadka danyarta si gaaraaneed u isticmaalaan. haddaba si aan ugu kurgalo maciishada iyo sidoo kale isbedelka ku yimid suuqyadaasi waxaan saaka hiirtii hore ku jarmaaday qaybo kamid ah suuqyada magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa khudaarta ee Wahen. jawigu waa u bedela oo qiimaha lagu kala gato khudaartu waxa uu ahaa mid kor u kac ku yimid saaka sida ay noo tilmaameen mas'uuliyiinta urur ay ku boobeen ganacsatada iyo sidoo kale khudaarleyda suuqan Wahen oo lagu magacaabo Iidaan kuwaasoo u sababay in saacado badan gaadiidkooda khudaarta lagu haystay bar control oo ku taala dhanka galbeed ee magaalada Hargeysa isla markaana lagu kordhiyay cashuur culus oo aan haba yaraatay u saamixi karin ay dib u sii iibiyaan. waxaana dabaarinta kala sheekaysay sida ay wax u dhaceen Cabdifataax Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka ay ku boobeen khudaarleyda suuqa Wahen ee Iidaan. magaalada Hargeysa shalay toole ay magaalada abaarso muxuu ahay lagu xanibay gawaadhidii iyada oo la weydiiyay lacag ka badan lacagtii awal horaalka ay ku soo dhaafi jireen. lacagta la weydiiyay muxuu ahay lagu kordhiyay waxa kamid ah in gaarigiiba lagu kordhiyay 800 oo shilinka Somaliland. lacagtaasi 800 ee shilinka Somaliland ee lagu kordhiyay kumay kordhin nimanka ganacsatada oo kaliya ee waxay ku korodhay dhammaan bulshada reer Somaliland ee danyarta ah. waxa weeye marka wax la kordhiyo cidda ay ku kordhaysay dhibaatada ku dhacaysa waxa weeye dadka danyarta ah ee muxuu ahaayay tafaariiqda iyo muxuu ahaayay waxa yar adeega iibsanaya taarta la ogaado ee muxuu ahaayay in xukuumadda Somaliland waxaanu filaynay in ay noo samayso horumar inay noo samayso wax qabad inay noo samayso muxuu ahaayay dib u kabasho maadaama dalku xaalad badan soo maray hase ahaatee waxaad moodaa inay xukuumadda laftigeedii ay noqotay mid aan danyartii danka lahayn ee muxuu ahaayay dhibaatadii aan muxuu ahaayay ka tirsanaynay xukuumadii hore mid ka daran dusha naga saartay waayo lacagta iminka muxuu ahaayay xukuumadda cusub ay naga doonaysay muxuu ahaayay ay gawaadhidii ku soo rogtay waxay ahayd mid aan xukuumadii hore naga qaadi jirin anagoo ilaa bariga cabanaynay oo lahayn muxuu ahaayay wax walba way nagu dalacayn oo maadaama aan saal lahayn haddana waxaad moodaa inay noogaba dartay. waxa weeye maanta dollarka cirku maraya dadkan qudaarta muxuu ahaayay ka ganacsada waxa weeye dadka quraata ee lacagta shilinka Jamhuuriyadda Somaliland wax ku iibiya marka anagu dollarkii imkaanu kaashkii wax ku iibino ee muxuu ahaayay dollarka aan isnaana ku soo bedesha waxay nagu tahay dhibaato aad iyo aad u ballaaran qasab ay nagu tahay inaanu lacagta dalka qaadano. waxaad moodaa iminka dadka quraata ee lacagtii shilinka Somaliland qaadata inay tahay dadka qudaarta ka ganacsada. baabuurta meesha muxuu ahaayay shalay toole ay soo istaageen ilaa subaxdii ilaa waxay joogeen habeennimadii xalay 10 habeenimo waxa qasab nagu noqotay markii muxuu ahaayay ay wax jawaab aanu ka weynay xukuumaddu ay muxuu ahaayay ku adkaysatay inay ka qaadayso muxuu ahaayay lacagta dadka in aan waxba laga deynayn inay qasab nagu noqotay maadaama waxaanu sidnaa ay tahay qoyaan oo qudaar dhimanaysa ay tahay waxaanu door bidnay inaan horta bal la soo baxno aanu indhaha isku qabanno wixii laga qaadana laga qaado. marka imika waa la soo daayay 25 gaari hadaan ay waliba tirada kor bay uga badnayd oo u rarnaa magaalada Hargeysa iyo gobolada Jamhuuriyadda Somaliland. dhankooda waxaanu kurgalay qaybo kamid ah goobaha kala duwan ee lagu iibiyo khudaarta isla suuqan Wahen waxaana dhammaantood ay ka marxaati kaceen horjoogayaasha goobahaasi in xilligan aanay u saamixi karin dib u sii iibiyaan khudaarta maadaama uu dhaqaalaha culus ee xukuumadda cusub saartay ay si weyn saameyn ugu keeni karto suuqooda iyo sidoo kale ka iibinta dadka danyarta ee ku xidhan adeegooda. waxaanay dhammaantood fariin u direen madaxweynaha cusub ee Somaliland mudane Biix iyagoona ugu baaqay in wax ka qabto cashuuraha culus ee dib loo saaray dhanka kalena hoosta ka xariiqay in xukuumadda ay ka filayeen hoos u dhigid lagu sameeyo qiimaha khudaartaasi. maalintaas aad heli imaka sixir bar labaad bay ku kordhay saakana gabadhan kiilooga amba 6 amba 5 way ka dhaqaaqda
inaan iska hoydaan gurigii tagoon bay noqonaysaa inta taageer ee tii hore laga cabanayay maanta ku soo siyaaday cashuurihii oo la kordhiyay dadkii suuqa wax naga iibsanayay aanu ka ganacsanayno oo naga yaacay maanta sixirkii markii la kordhiyay sidii hore markaan kii hore kii dambe idin dhaame ma kudka guura qanjow guur baa noqotay sixir barar baa hooyana haystay imaka haatana anagu intaasaan caruur ugu meermeernaa badna wax noogama yimaadaan cid kale waxba nama siiso caruurtayna jaamacadda ka saarnay way shaqalayina way taagan Soomaad garanin imaka haatana dee inta marka kiiloogi 5,000 baan siinayna 6,000 dee maanta waa la iga iibsan waa la iga yaacay dollarka wax ku iibisa gadbadooda bariiska ah iyo xabadooda taydha ay tahay dollar annagu hadii aanu nahay maatida iibisa qudaarleyda 3 baan dollar lagu iibin caanaha dollar kuma iibino maxay ahayd hilibka dollar kuma iibino qudaartana dollar kuma iibino intaba kaash baan nolola yimaada kaashkaasina annaguna dhibaa qudaartu dalka kama soo baxday dabadaanu ka keenna hadii laga keenana waxa nala ka qaadaa waa dollar kumana iibino oo waxaan ku iibinaa Somaliland bacda baradhada intay dawladda Somaliland cashuur ka hesho waxaan hubaana ninna weydiinayn in aan laga helin jaadka 2 daqiiqana jaadku ma taagnaado kastanka waan ka xumahay 48 saacadood 5 gaari oo Somaliland ilaa Sool ilaa Sanaag u raran in lagu haysto cashuur iyo intarigi iyagoo sita inay meel iska dhigto markaanu la xidhiidhno wasiirkii maaliyadda anigoo Aamina Cali la hadlay ee aanu sheegan gudoomiye ku xigeenka ururka iidaan baa kula hadlay arintaas aday ku taalay wax ka qabo runtii wasiirka cusubi waxay qanciyay ma oran مسؤولينta wasaaradda maaliyadda oo dhankooda aan isku daynay si aan arintan wax ku weydiino isbedelka ku yimi sidoo kale saameynta suuqyada ay ku keentay ayaanay noo suuragelin waxna xusideeda mudan in kulankii wasiirada shalay madaxweyne biixi qodobo si weyn u taabanaya marxaladan Faysal Maxamed Aadan Faysal TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa